xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay taageerayaal aad u tiro badan oo ka soo goostay xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID munaasabadan soo dhaweynta loo sameeyay taageerayaashaasi ku soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa waxay ka dhacday hoteelka Salom ee magaalada Hargeysa munaasabadan ayaa ahayd munaasabad aad u ballaaran oo kulmisay taageerayaal badan oo ka tirsan xisbigaasi cadaaladda iyo daryeelka UCID munaasabadan ayaa dhanka kale waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin marti sharaf iyo mas'uuliyiinta ugu sarsareysay xisbigaasi cadaaladda iyo daryeelka UCID iyagoo dhammaantoodna xubnahantoodna ka hadlay taageerayaashan ku soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID sheegeen in xisbiga ku soo dhaweynayaan xisbiguna noqon doono xisbi ay ku yeeshaan door aad u laxaad leh iyadoo halkaasina ay ka hadleen mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID iyo dhammaantood mas'uuliyiintaasi waxay taageereen taageerayaashan ku soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyagoo dhammaantood hadallada iska daba maray mas'uuliyiintaasina waxay yidhaahdeen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxuu soo dhaweynayaa dhammaan xubnaha ka soo jeedintay xisbigan sii saqiiraya ee kulmiye aad bay uga sii badan yihiin waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan xisbigan ma aha kii albaabada la iska xiri jiray ee shirarka la isu diidi jiray waa loo siman yahay ilbaynu nahay oyla guulaysano waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa martida maanta ku soo biirtay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee iskood isku maamulay aan u soo gelin xisbiga waxay u soo gelin xisbiga mabda laakiin inay wax ka urursadaan ama ay wax isticmaalaan may soo gelin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inay iyagu isabaabuleen maskaxdooda iyo fikirkoodana la yimaadeen inay ku taageeraan musharaxa xisbigana ay u yimaadeen xisbigana ay soo saaraan inay u yimaadeen in ay la tartamaan axsaabta kalena ay u yimaadeen soomaalida waxay ku maamaahadaa ninna dhaqashku kugu dhabarjaray ninna dhuulu ku dhex jooga xisbiga cadaaladda iyo daryeelka maanta dadka hareeraha maamaalaya waa waqti loo beekanaya baan u malaynayaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo danaynaysa xisbiga bahweynta cadaaladda iyo daryeelka ee aan qabyaaladu ku jirin ku bahoobeen Soomaaliland oo dhali waxaan leenahay ninkii bukooba UCID baad ku bogsanaysaa ee xaalad waxaan halkan kaga hadlayaa mudadii ku dambeysay sanad baa inaga dhammaaday xisbigan maanta waa ogeydeen halkii laga soo bilaabay xisbiya uu soo bixi waayey wuxuu doonay isaga iyo xukuumaddiisa doonaysa federaal doonaysa iyagaa baryaya awal iyagaa gabadhii ayaa munaasabadan waxaa soo afmeeray musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Jamaal Cali Xuseen waxaana uu soo dhaweeyay xubnahan ku soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka isagoo sheegay in xisbigan ay noqon doono xisbigooda in imaka qaar ay ku biireen xubnaha dhexe xisbigaasi isagoo wuxuu yiri isku جزاكم الله خيرا طبعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته isku soo wada duba munaasabadan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ugu sameeyay taageerayaashan ka soo goostay xisbiga kulmiye ayaa ahayd munaasabad aad u ballaaran oo isugu yimaadeen dad aad u tiro badan iyadoo halkaasina laga dareemayay damaashaad lagu soo dhaweynayo xubnahaasi ku soo biiray xisbigaasi وأحمد خالد فرح كلسن TV أرجيزة